waraysi uu siiyay TV-ga Somali Cable siyaasi ka tirsan golaha dhexe ee xisbiga wadani ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin taageerayaal ka baxay wadani kuna biiray kulmiye sidoo warkaan inoogu faahfaahinayo wariyahana Baalgoray Injineer Muuse Cabdilaahi Nuur oo kamid ah hoggaanka sare ee golaha dhexe xisbiga mucaaridka wadani isla markaana kamid ah siyaasiyiinta xisbigaasi ee ka soo jeeda gobolka Gabiley ayaa beeniyay inay jiraan taageerayaal Gabiley xisbiga wadani ka baxay oo ku biiray xisbiga kulmiye isaga oo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yiri Gabiley waa kulmiyana waa Gabiley maradu maanta leeyahay Gabiley way cid ka soo galaysaa wax laga yaaqso waa hadal aan meesha ku jiro lama filayn cidina ka akhrinayso waxay se daliil u tahay shaabad ku dhuftay in magaaladii laga wareeyay Gabiley oo barasaba noqoto ama maayar noqoto albaaba xidhmay waxbaan ma maqlay albaabadii bay fureen baan kula yahay albaabadii laga baxay iyay fureen marka qoladan hore ee ku jirtay ee soo gashayna badidoodu waxa weeyaan horta waa ku jiray waa kulmiyaha afar qof waxaan ahayn iyaa ku soo biiray iyaan aaminsanahay marka waa tit fortaad arrimahan imika gobolada ka socday wad kulmiye loo guurayo aad xalay maqlaysay wadaamago shacabkiina uu ka baxay magaalada waxay leedahay waanu ka guuray wadani baanu galay afartii xildhibaanna waxay keeneen Hargeysa shir lagu qabto oo la leeyahay wadani ka soo baxay waxa weeyaan waa arrin tit fortaad Gabileyna waan ognahay idinka laftiina og afarta oday iyo rooyeen ku xiran baa Gabiley ah kulmiye inta kale waa slogan iyana way ogyihiin daliil waxa uu ah Gabiley baa soo baxaysa wala dad kale waan ogay maantii dooda lacag baa lagu soo saaray waan iska waray waan soo ognahay fursa ku fadhiyo sidoo kale Injineer Muuse Cabdilaahi ayaa burburka xisbiga cid dusha ka saaray inuu ka dambeeyo xisbiga kulmiye isagoo canaan u soo jeediyay Injineer Faysal Cali Waraabe kuna sheegay inuu yahay mid aan la garan karin mucaarid iyo muxaafid mid uu yahay hadii jeer shirarka la qabtay ee ama xafladaha la qabto gudoomiyaha xisbiga ucid uu joogaa kaanahu inuu yahay kuwa kulmiye xisbi xaafid inuu ku jiro halka laga hagayaana waa kulmiye waa xisbi qaran xaq loogu malaha waa gef waa la baabiinaya Jamaal waa nin qalma waa nin aqooyahana waa nin dalka wax ka bedeli kara waxna qaban kara haduu nasiibkiisa iyo waa godob laga galay qarankuna ka galayo cid ka dambaysaana waliba arinta waxaan leenahay madaxweynaha loo qabsanaya ma aha in xisbi qaran la dimiyo oo gacanta dawladda inta ula tagtay iyadu ay gacanteeda ula tagto taasina wax cadaan oo laga qarinaya ma waan ognahay marka waxaan leenahay kulmiye hakadaayay berita iman doonta kulmiye la baabiyo hadaan qabsanay injineerka oo aan wax ka weydiinay ansixinta gobolnimada Gabiley ayaa waxa uu yiri dabo Gabiley goor walba kolka hadafka la leeyahay doorsadaya loo leeyahay wadani laftiisa ku horiya ayaan u digaya inaanu dhaarto halkan yimaadaan Cabdiraxmaan gudoomiyana ka hadlay maalinta halkan la yimaadana doorashadu gobol baan siinayna inay noqoto hadhowna lagu it was my first waxa arintii ugu horreeyay deegaanka bariga ku biiray arin isugaasi Gabiley ku raftay uu socon waayay maantana inuu socon waayay mar annaga wadani ahaa waxa naga go'an oo gudoomiyaha iyo madaxda ku wada horan ugu hadlay waaye Gabiley waxa ku leedahay xisbiga wadani ururnimadiisii ay ka soo saartay oo ku guuleysatay meelihii ka soo baxay marka waxa loo baahan yahay marxaladii hore ee laga soo gudbay hawl weyn bay naga gashay marxaladan maanta imika uu taagan yahay xisbigu inay reer Gabiley xisbiga wixii ay lahaayeen ku darsadaan oo daba galaan oo ay aad ula socdaan haddii markaa tii uu gudoomiyo ku ballan qaaday ee ahayd gobolnimada iyo waxyaabo kale taasoo maaha haddii taa la waayo annaga hana lacano ma la sulan karin maadaama uu imika gudoomiye horta gobolnimada waxay ku xidhan tahay waa golaha wakiilada golihii wakiiladana waxa haysta wadada gudoomiyaha wadani Cabdiraxmaan muuna golaha dhexdeeda imika ka ansixin karin intaan la gaarin badoosh ma arintaasi waa arin adiga jeedadku waa la iska yiraahdaa horta gudoomiyuhu waa gudoomiyuhu golaha baarlamaanka uu shirku gudoomiye laakiin issue-ga waxa soo dhiga laba meelood buu ka iman karaa waliba inta badan curinta waxa leh hadiye jeer noocaas xukuumadda 80% 20% bay baarlamaanku leeyihiin
curinta maanta xukuumadda haysa Siyaaniyo iyo dawladda kulmiye dhalaartii ay kulmiye doorashada ku jiray wuxuu Gabiley waan siinaya waa gobol buu lahaa tabta Muuse wiili buu iyo lahaa waro kaga baxay muxuu soo dhigi waayay ag boqolaal malyan bay ku bixisaa dhalaartii issue jira baarlamaanka ku laaluustaa waay ay Gabiley ugu laaluusi weeyay waxaan ku baaqayna ku deeqay 4 saacadood oo caleena waan ugu talagalnay waan u sheegay gudidii abaaraha in loogu deeqo oo aan bixino ayaan u sheegay gudida sidaas aanan u talagalnay ilaahayna waxaan baryaynaa inuu si degdeg ah inooga soo jebiyo ummadana loo gurmado waayo waa dadkeenii waa ummadeennii wax baabaaysa waa Cabdirashiid Salmaan Muuse Somali Cable TV magaalada Gabiley